ninka diiday muddo kordhinta xalaasha ah ee yidhi xukuumadda madaxweyne ma jiro macnihiisu waxa weeye nin diidan Soomaaliland miyaa maanta hadduu ku soo noqdo dalka waa baabayiisa soo sidaa maaha halka ayada ah ee xisbiyada mucaaridka ah hoos bay ugu dhaceen waxaana la yaab leh oo aan aqli gal ahayn inay mar walba ku andacoodaan ilaa beesha caalamka oo ay yiraahdaan madaxweynuhu na arki waayay shacabka waxaan kula dardaarmayaa goorta u fartiina canaananina taladooda sidaas ah ninka kari waayay xaafadooda intii kala socotay inuu kontaroolo ama dejiyo ama wuxuu sheego qaran siduu hogaaminayo ama ugu hungurooday aanu garan maayo waxaad arkaysaa hogaamiyaasha labada xisbi hogaamiyahaas walwala ilmaha caruurta qofka weyn dariiqa qofka taagan ka gaarigu ka xumaaday isu taagaya iyo hogaamiyaal meeshay maraan barasaas kaga tegaya ama ku maraya war maanta oo ay yihiin musharaxiin oo shacabka ay dhexgeli lahaayeen ayay tignika ku socdaana berri maxaa filanaysaan reer Soomaaliland Soomaalidu waxay oran jirtay ninkii waalan turkiga u miyir qabee inta kale ka badan ee la yaabane inaanay ka aamusnaan ay runta u sheegto oo khaladkooda u sheegto in midnimadii iyo walaaltinimadii aanay meesha ka bixin oo qabyaalad iyo cunfi iyo isku dir iyo reer hebel baan waxba idin ogolayn oo ay galiyeen hogaamiyaasha mucaaridku tolkood inaanay waxba ugu qaadine ayagu ay ka roonaadeen ay yiraahdaan tolkayo maxaa u baahan tihiin taladu way idinka khaldan tahay goorna u fartiina canaananina goorna waan khaldamay aan odhanina waxa lagu kaambayn garaynayaa kulmiya ku kaambayn garanaya waa been iyo lacagtii qaranka iyo qabyaalad miyaydin anfacdaa saddexdaasu arrintu waxa weeye ka cuno ka codee waxa laga cunayaana waa wixii qaranka wax ka cuno ka codee saa u tidhaahdeen sow maaha waxaynu ku ballamaynaa ida shacbu yowman araada alxayaa falaa budda an yastajiiba alqadar walaa budda lillayli an yanjali walaa budda lilqaydi an yankasir waxaan leeyahay shacab yow maanta fartiinna ku aarsada xaaraan ah hoggaanka ama madaxda ka xaaraana shacabka taageersan iyo shucuubta kale ka soo horjeeda ama taageersan madaxda kale inay xumaan u kala sheegaan ama cadaawad isu geliyaan maanta calankeenni wuu dhaawacan yahay qarannimadeenna way dhaawacantay shacabka reer Soomaaliland waan ka tacsiyadeynaa xisbigan wadani waxa maanta ku wada jira saddexdii xisbi qaran ee aasaasay qarannimada dimuqraadiyadda ee kulmiye iyo ucid iyo udub haybaan ku jirinna ma jirto kaadriskii soo saaray xisbiga kulmiye maanta waa wadani halka waxa burburka aanay dareemeyn ee geysiiyay in la xoqo nabar bogsaday oo qabyaalad wax lagu ololeeyo waxa u muuqata markay arkeen dadkiina ka dareeray inay taa ku kaambeyn gareeyaan fariintan halkan madaxweynaha qaranka uga dirayo waxa weeyaan madaxweyne halka waa maanta waxa ku turay mucaaridka ee maxaafid ku turi maayaan dadka halka ku soo fadhiisiyay ee ka hadliyay ee wixii la dhageystay ku hadlayay qarannimadii Soomaaliland iyo calankanba way duuduubeen umay tudin xisbiga wadani iyo mucaaridka ku tudayay wixii ay sameyn jirteen waa garanaysaan marka mucaaridka ahaydeen annaguna aan muxaafidka ahayn ee idinku dul qaadan jiray maanta mucaaridkii baa dul qaadanaya maanta shacabkii baa dul qaadanaya waxa la isweydiinayaa halkay ku sii socota Soomaaliland intee baa la sii dul qaadan karaya hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa abaara dhacay oo leeyahay madaxweynuhu uu baxay oo la noqotay waxa la yaab leh dadkii abaarta ku jiray in abaartii wixii la siin lahaa la yiraahdo waxa ku dhawaaqaysaan horta ayagoo gobolkii jooga xaruntii gobolka ee qaranka ee barasaabka xafiiska eego jooga in la yiraahdo horta kulmiye ku dhawaaqa aanu biyihii idin siina wixii aan idin wadnay wana ka daawateen TV-yada kelmadda halku dhagaan ay laaweyne waxa weeye ugu qaalisan hadalkayga maalin sidan oo kala wax loo abtiriyay miidiyaha wuxuu ka yiraahdo ogeydeen Soomaaliland waxay u baahan tahay wax xukuma oo u taliya ee uma baahna wax u abtiriya war ilaahay baan idinku dhaarshay meen abtirsinimadiina haysan